بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan kusoo guda jirnay cashiradeenii ku saabsanaa duruus luga alcarabiya ligayri nnaatiqiina biha min aljuz'i alawal darsigii hore waxaan kusoo qaadanay cashirka koowaad adarsu alawal haddii aadan soo dhegaysanin sida aad inoola socoto janalka ayaad ka heli doontaa insha allahu tacaala cashirka koowaad halkaa kasoo dhegayso cashirka koowaad marka wuxuu ku saabsanaa ismu ishaaraha gaar ahaan haada ayaan uga soo hadalnay tusaalooyin fara badan sida su-aal looga dhigo markii su-aasha yani caaqilka lagu weydiinayo iyo marka khayru caaqilka su-aal lagu weydiinayo laleeyahay maa haada iyo man haada in labadaasi loo isticmaalayo ayaan soo baranay sidoo kale hamzatul istifhaam markii lagu weydiinayo oo xarfu istifhaamin jawaabuhu nacam ow laa ayaan soo baranay tamriinaad kala duwan iyo haddii alla ku idmaayo yani jawaabahoodii ayaan hore usoo qaadanay ilaahay fadligii subxaanahu wa tacaala marka sida aad uga faa'iidaysato duruustan musalsalka ah waxaan kaa codsanaynaa inaad rukumato oo aad sabskraib saarato janalkan machadka ibnu malik soo dhowow maantana waxaan gudagelaynaa insha allahu tacaala darsiga labaad addarsu athaani cashirka labaad wuxuu ku saabsan yahay darsiga labaadii dhalika weli waa ismu ishaarihii haadaa waxaa lagu ishaarayay saa hor usoo baranay ismu ishaaro ay aheeda laakiin qariibay ahayd ismu ishaaraha dhow oo mufradka ah oo haddii alla ku idmaaya labka ah ayaa lagu ishaarayay caaqil iyo khayru caaqilna labadana wuu noqon karaa baan tilmaanay kan marka haadaa iyo dhalika farqiga u dhexeeya waxaa waaye keliya waa uun haadaa waxaa loo ishaaraa markuu dhow yahay dhalikana markuu kaa fog yahay ayaa lagu ishaaraa shayga kaa fog ayaa waxaa leedahay dhalika shayga kuu dhowna waxaa leedahay haada shayga u isticmaalaysid labadaba waxaa shardi ah inuu ahaado lab waa inuu ahaado waa inuu keli ahaado haddii alla ku idmaayo wuxuuna noqon karaa yacqil iyo mala yacqil shaygaasi marka hadduu fog yahane waxaan leenahay dhalika haddii uu dhow yahane haadaa baan leenahay tusaalooyin ku saabsan dhalika ayaan arki doonaa maa dhalika kaasi waa maxay waxa la ishaaraya waa xidigga halka kaaga muuqdo waxaan leenahay dhalika najmun kaasi waa xidig mumtaas haadaa masjidun kani waa masjid maadaama masjidka uu dhow yahay waxaan isticmaalaynaa lafdiga ishaarada haada ayaan isticmaalaynaa maadaama masjidka uu noo dhow yahay laakiin beytka wuu fog yahay waxaanu isticmaalaynaa dhalika waxaan leenahay haadaa masjidun kani waa masjid wadhalika beytun kaasina waa guri tamaam haadaa xisaanun kani waa faras faraskaana kuu muuqdo qariib ah oo dhow halkaa waxaa kaaga muuqdo dameer oo fog faraskan markaa ishaarayno haada aan isticmaalaynaa dameerkaas markaa ishaaraynana waxaan isticmaalaynaa dhalika haadaa xisaanun kani waa faras wadhalika ximaarun kaasina waa dameer adhalika kalbun kaasi ma eyba sawirka fiiri haddii uu ey yahay nacam aan ku jawaabi doonaa haddii uusan ahayna laa ku jawaabi doonaa ma ahan ey waa yaanyur weeyaan laa maya oo ma ahan ey dhalika qidun kaasi waa mukulaal weeyaan maa dhalika kaasi waa maxay sariir baa halkaa kaaga muuqato waxaan leenahay marka maadaama su-aal lagu weydiiyey su-aashana maa lagugu weydiiyey maa markii su-aal lagugu weydiinayane waxa khayru caaqilkaa baa loo isticmaalaa inta badan baan tilmaanay marka dhalika sariirun baan leenahay kaasi waa sariir man haadaa kani waa maxay waman dhalika kaasina waa maxay haadaa ishaaradan haadaa markii la dhaho qariibkii ku dhacaysaa macallinkan dersiga sabuurada ku qoraayo markii la dhaho dhalika la dhahane waxay ku dhacaysaa ishaaradu imaamka salaada dushinayo labadaasay ku kala dhacaysaa tamaam man haadaa kani waa maxay waman dhalika kaasina waa maxay haadaa haddaad iska tiraahid farfiiqidna aadan ku darin ma la fahmi karo marka waa inaad markaa haadaa leedaha farfiiqid ah ku dartaa haadaa masjidun haadaa waxaan ka wadaa cafwan haadaa mudarisun kani waa mucallim wadhalika imaamun kaasina waa imaam haadaa mudarisun kani waa mucallim wadhalika imaamun kaasina waa imaam
ما ذلك كاسنا ومحي ما هذا أركتد واحد الإشارة لازم إني ما لا يعقل اللغضان بقى حال الإشارة يا هذا أفرسه وحن لنا مركز ذلك حجر كاسوا رجح ويا تمام هذا سكر كان سكر سكرت وتناسور كاسويا وقريب وذلك اللبن كاسنا وعانو وبعيد سو مجدد واي هاي تمرين كوباد مركا أنا إسلا أرجن تمرين كوباد وحالو هاي اقرأ واكتب أخري قرنا قراءة هي كتابة aad bay muhiim ugu yihiin yani qofka baranaya naxwaha lidaalika waxaan arki doonaa in badan iqra' waktub aan arki doonaa marka waxaa la rabaa qofku inuu akriyo in badan weliba isigoo codkiisa sare u qaadayo inuu akriyo ku celceliyaa la rabaa inuu haddana yani qoraalna uu sameeyana waa la dooni waaxid haadaa sukarun wadaalika labanun kani waa sokor kaasina waa caano labo man daalika كل وحن كسو أرغنا درسي قدحيس من ذلك كاسوا محي ذلك إمام كاسوا إمام تمام أذلك قد كاسما وحاويا قد ميا يعني قد قوا يعني يرويا يعني يرتا قد لير هذا لا ميا ذلك كلب درسي نوجرت كاسوا أي أربعة ما هذا كانوا محي هذا حجر كانوا رجح ويا ممتاز الكلمات الجديدة كلمات كعصب نوجر درسيجة إمام أيا كميدا كو إمام كوحال هذا قفك الصلاة الدشيو أيا هذا إمام سيدو كلا إمام في اللغة وحالوغي هذا من يقتدى به ولو في الشر قفك اللغة ديسادو هذا حتى الشر قفك اللغة ديسانا أيو إمام هذا حقاك حجر ودقح سكر waxaan leenahay waa sokor labanun waa caano tamaam darsiga labaad halkaas oo noogu dhamaado aad uu yar yahaba halkaas ku soo koobaynaa waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto muuqaalkan aad sii share gareyso sidii looga faa'iideysto hada wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh لغة البيان ومنطق القرآن وفرادة فيها وسحر لساني يا درة بين اللغات مصونة أبدا وذا وعد من